Yes guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa Shaakir kusoo dhawaada kanalkaygan YouTube-ka. dabcan waxaan rajayn doonaa inaad subscribe samaysaan si aad ula socotaan maxay yahay mowduucyo badan oo muhiim ah ayaan soo gelin doonaa oo si taxana ah maxay u socon doona weekly waxaanu maxay caawinayaan barnaamijyadaasi dhanka shakhsiyadda horumarineed oo qofka shakhsiyadiisa horumarin lahaa haday tahay fikirkiisa haday tahay maxay tayadiisa haday tahay maxay businesskiisa haday tahay maanta inuu helo tibiskii ku habboon noloshiisa inuu gaaro hadafyadiisa riyooyinkiisa sida dadka cusub iyagu iminka maxay doonay business cusub bilaabaan ama horumar cusub sameeyaan iyo dadka iyaguna markii hore watay doonay iyaguna maxay inay si helaan xayaalihii u si saamixi lahaa inuu businesskooda taasi yeesho horumarna si yeesho waayo mar walba waxaan nahay sideen u fakarino mar walba waxa tahay qofka tahay ay soo jiidanaysaa hadii maanta aad doonayso inaad horumar samayso oo aanad haysanin tayadii yacniga horumarkaas ama aqoontii aanad lahayn ama maxay suuqeedii aanad lahayn ama fikirkeedii aanad haysanin oo waxyaalaha keenaya inaad ku guuldaraysato waxyaalaha dad badan maanta ay timi bulshadeena kamid ah inay maanta businessadooda ku guuldaraystaan ama inay macnaheedu noloshoodii ku guuldaraystaan ay waayaan yacniga waxa ay doonayeen iyo say doonayeen oo noolaadaan qofna maanta aanu maxay dad badan aan maanta haysan in badan ay istirada bilaabay in badan ay ku guulaysan weeday in badan markay dhexda marisay ay joojisay in badan maxay ay ka baqaanba inay bilaabaan oo maxay arrintaas darteed inay maxay heli waayaan haddaba maxaa lagaaga baahan yahay haddii noloshaada saddex shay laga waayo maanta waxaan idila sheer garanayaa qodobka koowaad oo ah videogan markaa waxa weeyaan hordhici ugu horeeya ama maxay baraarujintii haddii noloshaada laga waayo saddex shay waxaad tahay qof mar walba guul daraystay maxaad u baahan tahay hadaba inaad hesho bal maskaxdaada markaad dib u celiso waxaad u baahan tahay inaad hesho saddex shay oo ka ugu horeeya yahay ujeed nololeed waa inay noloshaadu leedahay ujeed iyo hiigsi waxaad yacniga maxay meelaad u socotay waxaad u socoto oo aad doonaysa inaad gaadho hadday tahay adiga noloshaada hadday tahay mustaqbalkaagii hadday tahay familkaagii hadday tahay dhaqaalahaagii hadday tahay business aad leedahay hadday tahay waxaas oo dhan hadday tahay qofka doonaysa inaad noqoto hadday tahay saad jeceshay inaad u noolaato hadday tahay shaqadaad jeceshay inaad hesho wax walba yacniga nolosha waxaa jirta ujeed qofka uu leeyahay u hiigsanayo oo mar walba ah inuu helo ilaa iyo mar walba uu ka gaadhana aanu marna istaagin haddii maanta aanay kuu daarnayn taasi waxaa niyadaada mar walba imanaya in aanad meel saxa aad u socotaa aanay jirin dabeetana ay kaa khalkhasho adigu aad leedaho saxa dabeetana mar baad laga yaabaa inaad wax kala raacdo inaad dad kale waxay sameynayaan iska samayso inaad mar walba haddana ku guulaysan weydo waayo qof walba markuu doonayo guul nolosha inuu gaadho waa inuu leeyahay wuxuu isagu hiigsanayo dabeetana markaas waxyaalaha noocaas oo kale waxay keentaa haddii aanu qofku haysanin inuu markaa noloshiisa aanu guul gaadhin waayo waxay u horseedaa taas oo kale inuu mar walba hadhowto isku dayo inuu dad kale tooda raaco ama inuu dad kale tooda ka shaqeeyo laakiin tiisi aanay meesha ku jirin marka taa weeyaan qofka inuu cad tahay ujeedkiisa hadduu ujeedkiisu cad yahayna mar walba wuxuu hiigsanaya meeshuu doonayo iyo wuxuu doonayo taas aanu ka shaqeynaya qodobka labaad waxa weeyaan hadaf la-aan okay haddii aanad haysanin hadaf noloshaada oo aad waxaad iyadana maxay maanta aad hiigsanayso oo kaloo hadaf aad jirna mar walba ku xisaabtamayso hadaad waxa samayso waxaad gaaraysaa okay waayo ujeedku isagu waa kii aad lahayd nololeed laakiin hadaf baa ka horeeya hadafkiina wax weeyaa waa kan kuu saamaxay ujeedkaagii nololeed inuu ku suurta galo marka haddaanad hadaf lahayn oo maanta aanad hadafkaasi ahayn kii aad mar walba ku xisaabtamayso wanaad maxay hadaf 3 bilood hadaf maxay 6 bilood hadaf sanad hadaf 3 sano hadaf 5 sano hadaf 10 sano yacni mar walba ah inaad gaadho hadafyadaada kala duwan taasina waxa weeyaan iyaduna mar walba waxyaalaha ku sii xoojinaya noloshaada ujeedkaaga inay ku rumoobaan haddii aanad haysanin iyadana way adag tahay inaad ku guulaysato waayo qofkiiba haddaan ujeed haysanin waa adagtay inuu hadaf yeesho marka xigta qodobka u dambeeya oo maanta aan la wadaagay waxa weeyaan qorshuhu waa nolosha qaybta ugu muhiimsan buu kamid yahay wax walba aad leedahay ama wax hadaad ujeed haysato iyo hadaad hadaf leedahayba waxa aad ku gaadhaysaa waa qorshe haddii aanad qorshe haysanin maanta qorshahaasi waxa weeyaan inuu kuu sameeyo inaad ku xisaabtamayso sidii ay kuugu qabsoomi lahaayeen hadafkan aad doonaysaa sidii kuugu suurtagali lahaa hadafkan waxa hirgelinaya ama suurtagelinaya waa qorshihii markuu qorshahani uu yimaado ayuu hadafkan guushiisa imanaysaa haddii laakiin aanad haysanin qorshe macnaheedu ma haysatid ujeed sare mana lihid hadaf dabeetana markaa ma lahaanaysid qorshe waayo qorshe wuxuu ku yimaadaa hadafkii inuu qofku hiigsigii maxay uu doonayo markaa uu raacayo marka waa wadadii weeyaan marka wadadii haddii aanay jirin meel u socotaa ma jirto waa bridge go'an marka maxay imanayso qofkaasi inuu damo halkiisana istaago
maalin walba waad soo toosaysaa bilaa qorshaa tahay qorshuhuna waxaan kuu xisaabinaya waqtigaagii oo waxaan kuu ilaalinaya hamigaagii oo waxaan kuu ilaalinaya hadafkaagii oo waxaan kugu riixaya inaad maalin walba ka faa'iidaysato oo aad u shaqaysato waayo qorshuhu wuxuu kugu suurtagelinayaa ama kugu dhiirigelinaya inaad ka shaqayso maanta ay shaqa ku taalo saad hadafkaagii u gaadho saad hadafkaagii u gaadhana ay kugu sii suurtagelinaysa saad ujeedkaagii nololeediyadana u rumayso marka intaas waa inta ugu horeysa ee mar walba aan kala maarmin ee qofku u baahan yahay dabcan marka dambe ayay kala iman doontaa xaalado fara badan iyo system kale oo badan oo qofka dhawto sii raaci doono haddii laakiin taas aad haysato noloshaada isbedel fiican baad helaysaa haddii inta aanad haysanina maanta wixii ka dambeeya raadi muxuu yahay ujeedka noloshaydu maxaan hiigsanayaa xaggaan u socdaa nolosheebaan doonayana ku noolaado sideebaan doonaya inaan u noolaado maxay tahay noloshaydu ma inaan just iska cuno iska cabo iska shaqeeyo iska soo tooso aan keliya biil iyo noloshaada aniga caadiga aan ku mashquulsanaada mise waa nolol ka weyn iyo hadaf iyo ujeed ka sarreeya inaan hiigsado taas hadday meesha kuu muuqato runtii waxaad helaysaa untaa noloshaad doonaysa iyo nasiibkaad doonaysa inaad ku noolaato maanta 3% ama 1% ayaa hela nolosha dadka aniga nolosha noocaas ama noloshu doonaya qofku inuu ku noolaado maanta ku guulaysataa intaasina waa inta ujeed kale ay hiigsanaysaa aan ahayn just riyo keliya way dadku majority way ku riyoodaan maanta inuu noloshu doonaya helo wuu ku riyoodaa inuu maanta uu noolaado sidaa inuu maanta helo shaqo wanaagsan inuu maanta helo nolol qurux badan inuu maanta helo qof aniga saaw eeg xataa yacni shape ahaaneed waxyaalo badan waad ku riyoonaysaa laakiin riyadu haddii aanay caddayn oo aanay sax ahayn oo kaa go-nayn meeshaasi aniga waxaad jecesho hiigsanayso mar walba aad ka fakeraysa aanay ahayn waxba ma soconayso taasina haddii aanay hadaf lahaynna ma sii soconayso haddaanay qorshan lahaynna ma sii suurtagelayso marka taa weeyaan insha allah aad baad umahadsantiin dhammaantiin aad baa idin wada salaamaya waxaan rajayn doonaa insha allah inaad subscribe ku samaysaan videogaygan in badanna waad la socon doontaan waxaanad ka dhargi doontaan waxyaalo fara badan noloshiina idiin suurtageli doona oo maanta u suurtagelin doona dad badan oo dhalinyara maanta inay entrepreneurship noqdaan noloshoodana ay maanta tayayaan iyo in hore soconaysa iyaduna inay qaladaadka ku jira businesskooda iyo fikirkooda iyo shaqadoodaba ay ka saari doonaan siina sixi doonaan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu